go'aan ku gaadheen qodobadan soo socda. maanta laga bilaabo Muuse Biixi xukuumadda koowaad ee dastuurka tan tahay xoog ku haysasho iyo keligii talisnimo ilaa inta laga helayo heshiis siyaasi ah oo la isla ogol yahay oo lagaga baxo khilaafka siyaasiga ah ee taagan. Muuse Biixi waxaanu aqoonsanahay madaxweynihii xilku ka dhamaaday ama madaxweyne aan haysan kalsoonida shacbiga iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye. axsaabta mucaaradka ah waxay komishanka doorashooyinka qaranka dejiyey waxayna diyaar u yihiin in la galo doorashooyin xor oo xalaal ah oo ay ugu soo horeyso doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. way ka soo horjeedaan mana aqbalayaan. xisbiyada mucaaradku waxay aqoonsan yihiin golayaasha dawladda ee sharciga ku fadhiya, golaha baarlamaanka, maxkamadda, dawladaha hoose iyo maamulka adeegga dadweynaha. bulshooyinka Soomaaliland iyo taageerayaasha axsaabta mucaaradka ahba waxaan u sheegayaa uu dhamaaday waqtigii madaxweynaha aad doorateen ee dastuuriga ahaa. wuu ka baxay heshiiskii bulshada ee dastuurku jideeyey. guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa nabad, isku duubni iyo inay ilaashadaan nabadgelyadooda. wixii sharci darro ahna diida oo cidna keligii talisnimo ha ka aqbalina. xisbiyada mucaaradka ah waxay ugu baaqayaan ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha amniga inay u hoggaansamaan dastuurka qaranka oo keliya si waafaqsan qodobka 123 faqradiisa koowaad ayna ka digtoonaadaan qaadashada awaamiirta aan sharciga waafaqsanayn. xaaladda waddanku marayo isla markaana si joogto ah u soo wargelin doonaan ulana socodsiin doonaan taageerayaasha tallaabooyinka xiga ee aynu qaadi doono. marxaladda cusub ee dalku galay wixii ka dhasha mas-uuliyaddeeda waxa iska leh madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday